kulanti waxaana wanaagsan khiyaarta naga daawataa janaalada ilayska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmada si wada jira labadan janaal hadaan oo kale waxaan kugu soo gudbinaa akhbaaraadka ugu dambeeyay laga qormaanta arrimaha Bollywoodka iyo koonfurta warbixintan waxaan ku bilaabi doonaa filmka Akshay Kumar ee tiyaatarada saaran Mission Ranigan maalintii labaad lacagaha tiyaatarada ka keenaya filmkan isla eegi doonaa filmkan Mission Ranigan ay wuxuu yahay film korkac sameeyay maalintii labaad 55% taas oo soo kale filmkan oo film lacag hoos ku furmay maalintii koowaad filmka maalintii koowaad waxay ku ahayd mid ku adkeed taas oo lacag 3 karoor ka yar oo la imaado filmka ay markaan korkac sameeyay asaguna filmkan uu noqday masabdiisi si fiican isku celiya taas oo maanta xadana laga yaabo in filmkan korkac kale uu sameeyo filmkan Akshay Kumar hogaamiyay ay wuxuu noqday film bilaawashadiisa ugu xumaa islamada filmka Selfie ayuu ka siliitay ee sanadkan loo daawaday xidigan filmkan ayaa jumcadiisa kood wuxuu ku furmay lacag gaaraysa 2.75 karoor shil sabda filmku wuxuu leeyahay 4.25 karoor filmka sida guud waa 7 karoor taas oo lacag aad u liita oo maalintii kood xitaa la maramin lacag caynkaas inuu ku furmo filmka Akshay Kumar asaata filmkan wuxuu ogyahay film uu dadka qaadi doono nacakal daad waxaan isla eegi doonaa atirishada Kangana Ranaut ayaa waxa la imaaday filmkeeda Tejas gosgoskiisa kaas oo ahaa gosgos sare ah filmkan atirishada wuxuu ku matalaysaa pilot kaas oo shaqeynaysa dawladda Hindiya waxaana sidoo kalena gosgoska uu ku bilaabanayo iyadoo diyaar doolinayso sidoo kalena hadala ay ku hadaaqayso taas oo sidoo kale mid kamid ah uu leeyahay in Kangana Ranaut uu yahay macallin taas oo la sheegay in loo dhiibo rabo mission caalami ah wuxuuna ku jawaabayaa haduu yahay mission kamid iska fudud in iyada aan loo dhiibin asaati mission adag ay tahay in iyada loo dhiibo taas oo soo kale arkayna tirshada ee diyaar duuliye ay tahay soo kale diyaarada nooca dagaalka ay duulinaysaa waxaana tahay mid dagaalka ay kula jiraan Pakistan filmkaas inta badan lagu qaada dhigayo iyo soo kale qorab burcada oo dhinaca Pakistan ku jirto iyo soo kale saaxiibkeed la afduubanayo iyadoo rabtan in missionkaas ay qayb ka ahaato oo ay dib u soo badbaadiso filmkan Kangana Ranaut ayaa qoray director waxa ka Sarfash filmkan soo saaray waxa ka Ron Screwala filmkan waxa lagu wadaa in tiyaatarada uu koro dabaaqada bishan ku jirna October 27 waana film xiiso tirshadan ee dib ugu soo laaban doonto tirshadan ay alaaba filmadeeda waxay tahay mid ay hogaamiye ay ka noqoto arnaca kale waxaan isla eegi doonaa tirshada Kajal ayaa waxay sheegtay in Ajay Devgan uu yahay mid iyada inta badan filmadeeda uu san daawan Kajal Ajay Devgan ayaa waxay yihiin kuwa Bollywoodka lamaanash ugu shidan ku jira waxaan yihiin kuwa isla nool muddo 24 sano waxaana tishaan ay ka hadashay in aysan dhicin in ay weligood ay ka wada hadlaan arrimo shaqo xilliga guriga ay wada joogaan tishada wax soo hadal qaaday in weli aysan ka munaaqashoonin arrimaha la xiriira jiliinka iyo soo kale filmada xilliga ku guda jiraan guriga saata waxay sheegtay in ay jiraan waxyaabo kale ee labadooda ay ka wada hadlaan xilli wareys ay siineysay shabakada film companion Kajal ayaa waxay ka hadashay xiriirka la dhaxeeya saaxiibkeeda iyo ninka qabay Ajay Devgan waxaana sheegtay inuusan inta badan filmadeeda ama mashruucadeeda uusan daawan Ajay Devgan tisha asiga waxay sheegtay in asiga ay daawatay inta badan filmadiisa si kastaba tisha asiga waxay sheegtay in aysan arintaasi wax dhibaato aysan ku haynin waxay sidoo kale sheegtay in aysan rabin in raadinayso saxitaanka in ay xushmad asiga u muujiyo waxa soo kale wax laga weydiiyay tirshadan hadii ay jirto in marar qaar uu talooyin u soo jeediyo Kajal ay waxay sheegtay ama ay ku jawaabtay maya waxay ku jawaabtay in labadooda yihiin kuwa markaan ka dhaxeeyo xiriir sara oo amnigiisa uu sugan yahay waxay soo kale inta si raacisay in aysan weligooda arrimahaas ay ka wada hadlin arrimaha shaqada waxay sheegtay in xitaa ficilada filmada iyo muuqaalada xitaa aysan weli ka munaaqashoon waxay sheegtay in xilliga wareysi ay bixinaysay in ay haystaan 2 caruur ah soo kale waxay sheegtay in guriga ay joogaan 2 ay iyo soo kale 4 gaari soo kale waxay sheegtay waxyaabo ka badan intaas aysan jirin inay ka wada sheekaysan waayaan oo ay u dalacaan inay ka wada hadlaan arrimaha filmada ayay sheegtay tishada Kajal waxay sheegtay intaas ayaa naga badan Kajal soo kale Ajay Devgan ayaa waxay ka hadashay filmkiisa ugu horeeyay oo director ka ah ee filmka Yumi Orham kaasoo 2008 la daawado wuxuuna filmku saabsan arrimaha dramaha iyo jaceylka projectkaas ayaa wuxuu Ajay Devgan mid oo soo kale ka ahaa qoraa iyo soo kale soo saaray iyo directorba ijla soo kalena waxa uu ahaa filmkaas mid si kala duwan loo naqdiyay filmkaasi bandhiga Kajal Ajay Devgan wuxuu film si aad loo amaano filmkaasi Kajal ay waxa laga weydiiyay sida uu yahay directornimada xidigan Ajay Devgan
waxay sheegtay inuu yahay director kugu fiicnaa ebed ee la shaqeyso taasoo xilli walba ay weydiiso inay rabto mar kale inay la shaqeyso film directorkiya taas oo sheeko fiican oo la imaado si kastaba dhinaca shaqada markaa fiirnaa tirshadan ayaa waxay isku diyaarinaysaa filimkeeda ugu horeeya ee qaybta OTT lagu soo fasixi doono kaasoo dhawaan oo duubis ku bilowday filimkaasna waxaa la duubati waxaana directorka Kanika Dillon taas oo soo kale filimkaas ay soo saari kartaa tirshada Creative Sanon kaasoo ka dhigaya filimkeeda ugu horeeya ee soo saaray ay ka noqoto ugu dambeyn daawad waxaan isla eegi doonaa tirshada Anushka Shetty ayaa mar kale waxay ka hadashay haddii dhacayso in ay mar kale la shaqeyso xidiga Barabas sida aad ognahay Barabas iyo soo kale Anushka Shetty ay waxay yihiin kuwa markay imaado inay kasoo wada muuqdaan qaybaha saashada ay waxay ku waaweyn soo kale isfahamkooda xagga saashada ay wuxuu yahay mid qof walba ee indhahaysan u dhameystirin karin bandhigooda filimka Bahubali ee SS Rajamouli directorka ayaa qof walba aad ka gashay kaasoo qof walba ay ku taameyso gaar ahaan taageerashada in mar kale si wajira ay ku wada arkaan saashada xilli wareysi ay bixinayso soo kale wareysi ay siinayso gulte ayaa waxay tirshadan ay ka hadashay ama wax laga weydiiyay in taageerashada markaan rabaan in ay mar kale film ka soo wada muuqdaan si wajira iyadoo ay Barabas taas oo tirshada ay ku jawaabtay in wax walba ay tahay mid ay iyada gacanteeda ay ku jirin waxay sheegtay in go'aanka in iyada gacanteeda aysan ku jirin waxay sheegtay in wada ogtahay in qof walba am taageerash aad u jecel yihiin labadoo in hal film loo wada dhiibo waxay sheegtay in arrintaas ay ku xiran tahay sheeko fiican iyo soo kale fishinka ama waxyaabaha laga damacsan filmkaas waxaan rajaynayaa sheegtay mid kamid ah qoraalada in uu qoraal fiican la imaan karo soo kalena oo labadooda hal film isku keeni karo ayay sheegtay xidigta labadan Bahubali ka soo wada muuqdeen ay waxay soo kale kuwa isfahamkooda soo bilaabatay markii filimkooda ugu horeeyay ka soo wada muuqdeen ay bila kaasoo la daawado 2008 labadan ay soo kale waxa lagu magacaabaa labada ugu fiican ee Hollywoodka inay filmaha film ka soo wada muuqdaan taas oo soo kale kadibna Bahubali waxay noqotay in labadooda ay jecel ay wada wadaagaan taas oo soo kale labadooda la sheegay in waraxana oo jireen in labadooda ay dhici karto in ay guursadaan ama ay isguursadaan tirshana waxa laga weydiiyay arrimaha guurka waxaana ay ku jawaabtay markii hore inay qorshe soo kale waxay sheegtay dab ahaan inay rabto soo kale inaysan u haynin jawaab sax ah waxay sheegtay in suurtagal ah inay dhacdo ama ay ku dhacdo si caadi ah soo kale waxay sheegtay waqti ugu wanaagsanba waxay intaas siraacsan in guurka uu yahay wax dhici doona soo kalena ay tahay in waqtigiisa ku dhici doono taas oo ay aaminsan tahay Anushka Shetty ay filimka ugu dambeeyay lagu arko waxa filimka Miss Shetty iyo Master Paul Shetty kaasoo kala soo muuqday xidig ka soo muuqday filimka Chochori ee Naveen Paul Shetty waxaana ahaa filim lagu soo fasaxay Netflix dhawaan idoo soo kale luqadooyin badan lagu daawaday Anushka Shetty ayaa markaan wax isku diyaarinaysaa sidoo kale filimka ugu horeeyay Maalam kaas oo lagu magacaabo Kathana waxaana soo kale kala soo muuqan doonta aktarka Jayasuriya kaasoo doorka hogaaminta filimkaasi leh filimkaas wuxuu yahay filim xiiso leh waa tirshada u diyaarsan inta aynu kusoo koobnaa daawad warbixinadan muuqaaladan aan ku qaaday dhigin warbixinada ugu dambeeyay maanta laga qoray arrimaha koonfurta iyo Bollywoodka kuwaas oo waxaan wararka ugu dambeeyay la wadaagi karteen daawadayaashana ku taxan barta tusmada filmada iyo soo kale barta kale la isku xogaa kuwaas oo la xiriirna xanta jalaash filmada soo baxay qorshooyinka filmada teatara saaran kuwa goosgoosada ee laga soo bandhigay iyo waxyaabahaas aan alaab xiiso lahayn oo la wadaagi karteen daawadayaashana ku taxan barta tusmada filmada iyo soo kale barta kale la isku xogaa هذا ربحنا كشيء لقينا صار سوق السحابتين لوداقة كان كيس حقنا سيداسيا نبادينو